maanta waxaan bilaabi doonaa taxano aan ugu talagalnay inaan uga hadlo qalabka caafimaadka ama qalabyada loo isticmaalo caafimaadka ha ahaado qaliin ha ahaado shaybaar hana ahaado qalabyada wax lagu baaro sida ultrasoundka iyo wixii la midka ah waxaan rajaynaynaa inta aan ku guda jirno qalabyada soo bandhigitaankooda in aad ka faa'iideysan doontaan qalabyada kala duwan ee aan ka hadli doono marka ugu horeyso waxaan soo qaadan doonaa qalabka ugu muhiimsan caafimaadka marka la joogo baaritaanadiisa waana qalabka ultrasound loo yaqaano waa qalabka ugu casrisan ee loo isticmaalo in lagu ogaado uurku jirta qalabkan waxa lagu baaraa wax kasta oo xanuun ah oo ku jira uurka fikradda alifaada qalabka ultrasoundka waxa markii ugu horeysay caqliga ku soo dhacday nin scientist ahaa ee loo yaqaanay Lazzaro Speranza oo u dhashay dalka Talyaaniga sanadku markuu ahaa 1794 saynisyahanka ayaa waxa uu baaritaano ku sameeyay xayawaano gaar ah sida xayawaanka fiinnaarta waxa uu ogaaday in ay isticmaasho dhagaheeda si ay u turto cod ama jabaq oo dadka aysan maqli karin kadibna ay ku ogaato waxa ay cuni lahayd waxa ay ka carari lahayd wixii ay qabsan lahayd iyo meeshii ay istaagi lahayd dhammaan warbixinadaasi waxay ka heshaa codkaasi haddaba fiidmeerta ayaa isticmaasho wax loo yaqaano echolocation oo ah in la isticmaalo dhawaq si loo ogaado walxaha meesha ay kala yaalaan fikraddan ayaa asal u ah in la isticmaalo oo la hindiso qalabka caanka ah ee ultrasoundka adiga dhageyste makula tahay ama ma ogeyd fikradda ultrasoundka in laga keenay xayawaanka loo yaqaano fiidmeerta fadlan nagula wadaag qaybta commentiga ah 1877 waxay fikraddani hormariyay laba wiil oo walaalo ah oo kala ahaa Beer iyo Jaguar waxayna sameeyeen aalad loo yaqaano transducerka taas oo dirayso fariin cod ah ama jabaq ah iyo qalab kale oo akhrin kara ugu dambeyntii 1915 saynisyahan loo yaqaano Paul Langevin oo u dhashay dalka France ayaa soo saaray qalab lagu baari karo badda gunteeda kadib quustadii Titanic markabkii Titanic qalabkaasi oo ahaa hydrophonic ayaa wuxuu u isticmaalay jabaq si loo helo xog ku saabsan badda gunteeda kadib markii fikraskaasi uu keenay nin saynisyahan u dhashay dalka Ruushka golaha caalamiga ee barashada aqoonta cilmiga caafimaadka gaar ahaan kuwa ku shaqeeyo aaladda ultrasoundka ayaa u aqoonsaday Paul Langevin inuu yahay ninkii ugu horeeyay ee sameeyay transducer 1942 dhakhtarkii u horeeyay ee la dhihi jiray Karl Desicky oo ahaa dhakhtar neerfaha ku takhasusay ayaa isticmaalay qalabka ultrasound wave-ka si baaritaan ugu sameeyo buro ku taalay maskaxda waxayna noqotay isku daygii ugu horeeyay la ogaaday in loo isticmaali karo jirka bini'aadamka 1948 fikraddii ayaa waxa horumariyay cilmiga fiisikiska iyo teknoolajiyadda oo isla socdo dhakhtar lagu magacaabo George Dewey oo ahaa dhakhtar cudurrada guud ayaa isticmaalay mood ultrasound loo yaqaan mood si uu baaro dhagax ku jira xameetiga 1949 ilaa 1952 laba kamid ah saynisyahanada ka soo jeeda jaamacadda Colorado oo kala ahaa Douglas and Joseph ayaa waxay hogaaminayeen casriyeynta ultrasoundka waxayna soo saareen P-mode ultrasound oo ay la socoto 2D B-mode si loo baaro burooyinka ku dhaco naaska 1953 injineero iyo saynisyahan ku xeel dheer fiisikiska cilmiga fiisikiska ayaa sameeyay qalabka echocardiogram ayagoo isticmaalayo echo test control oo ay lahayd shirkadda Siemens wixii ka dambeeyay 1970kii waxa isa soo tarayay casriyeynta iyo horumarinta joogtada ah ee lagu sameeyo qalabka ultrasoundka iyadoo la sameeyay ama la soo saaray qalabyo kala duwan oo ku baari karo continuous wave doppler spectral wave doppler color doppler ultrasound